waa tahay daawadayaal halkaad nagala socotaan waa telefishinka Royal waxaana daawanaysaan warka idinkaga imaanayo xarunta TV ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya markana Gaalkacyo waxaa degan xaaladda magaalada Gaalkacyo iyadoo shalay halkaas ay ku dagaalameen ciidamo ka kala tirsan dawlad goboleedyada Galmudug State iyo Puntland wariyaheena ku sugan magaalada Gaalkacyo Safiya Sheekh Cali ayaa ku soo waramaysa in xaaladda magaalada ay degan tahay waxaana sidoo kale la sheegayaa in magaalada dad badan oo ku nool oo ay ka mid yihiin aqoon-yahano iyo waxgarad halkaas ku nool ay ku baaqayaan in dagaaladaasi waxaa xaalad deganaansho ah laga dareemayaa goobihii shalay ay ku dagaalameen ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayadoo maanta magaalada ay ka jiraan barakac baahsan kaasoo dad ka baqdin qabaan in mar kale uu ka qarxo gudaha magaalada dagaal u dhaxeeya labada dhinac waxaana isi soo taraya baaqyada loo jeedinayo dhinacyadii ku dagaalamay maalimadii shalay magaalada odayaal iyo ganacsato ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada ayaa soo saaray bayaan ka kooban 3 qodob kaasoo ay ka mid ahaayeen joojinta dagaalka in la kala qaado ciidamada isku horfadhiyo goobihii shalay lagu dagaalamay iyo ka hadalka waxyaabihii sababay dagaalka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii iyo ganacsatada labada dhinac ee maanta bayaanka lagu dalbanay joojinta dagaalka soo saaray Gaalkacyo waxaan gaarnay 3 qodob oo kala ah in xabadda la joojiyo in la kala qaado ciidamada iyo in laga wada hadlo dib looga balamo laga wada hadlo dhacdadii iyo waxyaalaha ay saameynta ku lahaa iyo sida wax u dhaceen iyo deegaanka nabadiisa intaana in laga wada hadlo ayaan goosanay waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Gaalkacyo inay nabadda ilaaliyaan in xabadda la joojiyo in qof walba uu amniga xil iska saaro in culumada iyo odayaasha iyo qof kasta oo reer Gaalkacyo oo xil iska saaro waadoogeydeen shalay magaaladu qaraab ay ahayd maantana waa magaalo nool oo shaqeynaysa in xabadda la joojiyo in ciidamada la geeyo goobihii ay hore ugu sugnaan jireen in la xaqiijiyo dabadeedna la isku soo noqdo wada hadal iyo wada xaajood go'aankaas baa guddigii soo wada saaray labada dhinac soo ka kooban waxaan rajaynayaa inuu hirgali doono ilaahay idankiisa qaynaa walaaltinimada inay ilaaliyaan darisnimada in la ilaaliyo xaqa in la ilaaliyo isku leeyahay dadka waxgaradka ah iyo maamulada iyo warbaahinta iyo cid walba oo saameyn leh iyo waxbarashada goobaheeda waa in dadka laga wacyigeliyo nabadda iyo muhiimadeeda waa inaan magaalada laga qixin waa inaan isu colaadin waa in walaaltinimada lagu dadaalo barakallahu fiikum baahda warbaahinta waxay goor u dhilahaa maadaama saameyn badan leeyihiin meelo badan ka dhageysto dadka wacyigelin u sameeyaan isugu yimaado laguna wada hadlo waxaan leenahay dadku uu bixin halaga daayo dadka telefoonada iyo wararka loo kala dirayo oo la leeyahay waa la soo socdaa iyo hal guur iyo hal baxo dadka waxaan leenahay isdajiya magaaladu nabad weeye nabad bayna inagu deeqdaa kulligeen nabad baynu kaga shaqeynaynaa cid kasta waxa weeye xabadda in la joojiyo kan labaad waxa weeye ciidanku inuu xaliyihiisa ku kala noqdo kan saddexaadna waxa weeye waxa shaqaaqada keenay in laga wada hadlo oo laga ballamay in laga wada hadlo waxa kaleeto oo aan dadka u sheegaynaa dadku inay xasiloonaadaan maamulada waxaan leenahay arrinta dadka balada buunbuuninayo waa qaxay waa nacaysaa leeyahay ma jiro dad oo gurihiina jooga magaalada hala jooga baa saxaafadda waxaan leenahay saxaafaddu waa waran wacflah Safiya Sheekh Cali telefishinka Royal Gaalkacyo.